waxaan horta u mahad celinayaa ilaahay na khalqay oo maanta suurtageliyay inaan halkan isugu imaanno xafladan sharafta badan oo aan ugu soo xireyno dufcadan tababarkii dheeraa ay soo qaateen waan arkayna maanta inay dhaartii ilaahay u mareen inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacaan shuruucdana ilaaliyaan aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay sharaf weynna ii ah inaan idinkala soo qayb galo oo aan markhaati ka noqonno idinkoo dhammaystay 9 bilood oo tababar adag ah oo maanta aad diyaar u tihiin inaad dalkiina u adeegtaan oo aad difaacdaan aad iyo aad yaan ku mahad celinaynaa qof walba oo hawshan ka soo qayb qaatay waxaa ladiin dhaariyay maanta oo ilaahay hortiisa aad ku marteen annaguna aan markhaati ka nahay inaad difaaciisaan dalkiina diintiina iyo dadkiina shuruucda qaranka u yaalnana aad ilaalinaysaan waa mas'uuliyad aad iyo aad u weyn maxaa yeelay waxaad maanta ku dhaaratay inaad diyaar u tihiin inaad u dhimataan oo dhiiggiina u daadaysaan wax ka dambeeya ma jiro qof ku hibay naftiisa dalkiisa inuu ku bixiyo wax ka dambeeya ma laha taas runtii waxay ka turjumaysaa xaaladdan ku jirno oo lidinku dhaariyay inaad difaacdaan dalkiina markuu nabadda yahay iyo marka uu colaad ku jiro dagaal ku jiro waxaa loo baahan yahay marka inaan isu diyaarinno dalkan siduu nabad ku noqon lahaa oo aad madaxa ku qabsataan idinka iyo annagoo idin iyo shabaab dalkan ma wada joogayno cid baa ku adkaanaysa waxaan aaminsanahay inaan ku adkaanayna annaga maxaa yeelay annagaa xaqa annagaa ummadda matalna iyagu waa qowlaysato loo soo diray dalkan inay burburkiisa iyo dhibaatadiisa ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya dad ajnabi ah waxaan idin leeyahay wax walba waxaan ka shaqeynaa wax walba inaan geenno ama aan awooddeena saarno ama dhaqaalaheena aan gelinno dhanka dagaalka marka idinka maanta oo ladiin tababaray ciidanka asluubta macnaheedu ma aha inaad ilaalinaysaan maxaabiis kaliya waxaa la rabaa howlgallada dalka inaad ka qayb gashaan oo aan loo kala harin maxaa yeelay wax walba waxaan nidhi dhanka dagaalka hadday tahay dhaqaale hadday tahay awood hadday tahay khibrad wax walbaba maxaa yeelay dalku wuxuu ku jiraa dagaal adag ayuu ku jiraa sidaas darteed waa ku khasbannahay inaan dalkan aan dib gacantii ummadda soomaalida ugu soo celinno inaan dib ciidanka qalabka sida ugu soo celinno inaan dib sharciyaddii ugu soo celinno inaan dib maxaan ku yiraahdaa dimuqraadiyaddii aan ka ballannay oo ahayd qof iyo codkiis aan dib ugu soo celinno aasaas waxa u ah in la xoreeyo in nabad la keeno waxaa noo ballana kulligeen marka yar iyo weynba shacab iyo ciidan madax iyo qof walba oo Soomaaliyeed waxaa noo ballana dalkan inaan ka horeyno oo aan bannaanka ka dhigno qolooyinka horarka ah haddii ay noogu imaanayaan nabad ay qaadanayaan oo ay wada hadal ama hub ka dhigayaan oo ay ogol yihiin inay ummadooda ka soo mid noqdaan annagu horaan u ballan qaadnay inaan siinayno soo dhaweyn wanaagsan marar badan waa sheegnay inaan cafinay oo aan cafis u fidinay laakiin haddaysan qaadan cafis waxaa noo ballana annagaa guulaysanayna annagaana u harayna dalka annagaa iskale dalka annagaa wanaaggiisa ka shaqaynayna ballan ilaahay waxaan uga ah kulligiin ballan ilaahay waxaa idinku ah inaad dhimataan soo maaha soo ballan ilaahay maaha annagana ballan ilaahay waxaan ugu ah wax alla wixii loo baahan yahay oo dhanka dagaalka inaan la diyaar garoono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu